hablahaygii inkastoo aragga naafo ka tihiin hablahaygii baatiin habluhuna sideedaba marka horeba bulshadeenna qiimo gaar ah bay ku lahaayeen madaxa dadkay saaraayeen ninkii garanaya bariyahan dambe dhaqamada xumaaday akhlaaqda xumaatay waan arkaa rag dumar ku raran dumarku qiimo gaar ah ay leeyihiin taash gaar ah saaran waa lama taabtaan marka qiimaha guud ahaan dumar ku leedihiin haddana intiina aragga naafada ka ah xil gaar ah qarankan ka saaran xukuumad ka saaran shacab ka saaran haldowr ka saaran aqoon ka saaran ganacsade ka saaran qof kastoo inaga mid ah xilka labaad baa isagana markaa fuulaya walaalkaygii igu horreeyay waxaan la qabaa madaxda qaranku inay tan oo kale ka maqnaato maaha waxaad se moodaa baryahan dambe qofku inuu garan balaayo malaa gaadhigan uu wato inay ummaddu leedahay shidaalka ku jira inay ummaddu leedahay waqtigiisana in laga iibsaday oo mushahar lagu siiyo annaga cid mushahar lagu siiya ma jirto dhulkaanu isaga habeen kasta 4-3 meelood baa isaga daba qaadnaa waa xil iyo waajib aanu isa saarnay laakiin ninka ummaddan mas'uul ah xilkaasi mushaharna uu ku qaataa inuu ummadda ku xidhnaado ummadda dhex joogo haddii uu mashquul yahay oo ogolahay laakiin de waa in marka casuumadda loo geeyo dhado anu mashquul baan maanta ahay idin ma iman karayo laakiin wixii ay garataan xafiiska igu keena waan dhammaystirayaa sidaas ay idin ahaato marka inay ka maqnaadaan ma ahayn tan oo kaliya kama maqnay 1,000 meelood oo ka mudan bay habeen walba ka maqan yihiin adduunyada dadka aragga naafada ka horumar bay gaadheen buugaag bay qoreen jaamacaday dhigaan lecture jeediyaan ganacsata way noloshii guul ka soo hooyeen waxay uga soo hooyeen wax kala maaha bulshadooda iyo qarankooda baritaaray halkay joogaan waa la geeyay inaguna ma nihin qaran ku filaan waaya imaka waxa la sheegay 17 hablood way qarantu 17 hablood xil qaadi waaya ma nihin 340 milyan miisaaniyada 17 qof kamayna xil qaadi kari waay iskuulka ugu fiican umayna sameyn kari waay dhaqaale ugu mayna abuuri kari waay markaynu wax barnana xilal umayna dhiibi kari waay kuwada doonaya kuwada raba inay wax qoraan kuwada raba inay gabyaan kuwada raba inay macallimiin noqdaan imisad google-ka haddaad gasho macallimiinta dunida lecture-ada ugu qiimaha badan dadka la dhiso wadada arag indhaha arag waxba aan maartay naafaka marka sidaas horta walaal qiimo u leedihiin laakiin waxaan doonaynaa halgantaan xaqiina inaa soo dhacsataan codkiina inaa kor u qaadaan waxaanan rajaynayaa in ururkiina idin saamaxo in awoodda la idin siiyo awoodda in la idin siiyo waxaa yimeen shacbigeena xukuumadda inaan dusha ka fuula maaha shacbiguna xil baa saaran ganacsataynu leenahay waynu shaqaysanaa mushaharooyin baynu qaadanaa marka laga yimaado xukuumaddeena iyo miisaaniyadeeda inaguna kumaynaan filaan kari waayin 17 hablood ama inta waxa jira de kumaan kun oo la gaarin de 17 waa la gaarayune ayaa jira oo la gaarin de marka taasina waa taa hablaha iyo haniye jabina waxaan rajaynayaa insha Allah inaan mar kale fursad helo oo iyagoo gaarna aan u nimaadno guuleysta walaalayaal hanaga niyad jabina insha Allah ta'ala madaxweynaheen waa madaxweyne qaranka waa soo halgamay uu garanayaa duruufta qof ku nool yahay maarta aragga naafakaahi insha Allah dhawaaqina waa gaari doonaa hadduu xitaa iska daayo miisaaniyadda insha Allah mushaarkiisu 17 ku xil qaadi doonaa insha Allah isagana isaasaynu ka rajaynaa ka filaynaa khayr baan idin rajaynayaa guuleysta walaal hanaga niyad jabina dalkeena Soomaaliland wuxuu qurux badnaanayaa markuu idinkeeda qurxiyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh